baldi baa New Year milicsan oo October 21 sanadkii 1969 maanta kale muddo laga joogo 11 sano waxa inqilaab taladii dalkii la isku oran jiray Soomaaliya ku qabsatay madaxweyne Siyaad Barre iyadoo xilligaas ra'iisul wasaare uu ahaa naxariistii jannaha ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo xilligaas ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inqilaabkii xukuumadii ra'iisul wasaare Cigaal ku qabsaday keligii taliye Maxamed Siyaad Barre kadib markii uu maamarada ku dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake 15 Oktoobar sanadkii 1969 iyadoo xilligaas ra'iisul wasaare Cigaal uu dalka kaga maqnaa safar dibadda waxa khudbad taariikhda gashay ka jeediyay xilligaasi jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa isagoo ra'iisul wasaare Cigaal uu u doodayay dalweynaha Shiinaha inuu xubin laga siiyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo ay cod ku yeeshaan. Cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight. keligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre waxa uu amray in xabsiga lagu hubsado ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo ahaa siyaasi rugcada ah oo uu cabsi weyn ka qabay haddii uusan xidhin in isaga la xidhi doono waxa isla habeenkaasi 21 Oktoobar waxa ra'iisul wasaare Cigaal lagu xidhay Afgooye iyo xabsigii laanta buur ee magaalada marka ra'iisul wasaare Cigaal waxa uu xabsigaasi ku qaatay muddo 6 sano ah waxaana laga sii daayay sanadkii 1975 waxaana sii deyntiisa ka qayb qaatay madaxweynayaal ay saaxiibo dhow ahaayeen ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo ay kamid ahaayeen madaxweynihii xilligaasi dalkaasi Kenya Master Jomo Kenyatta madaxweynihii dalka Tanzania Master Julius Nyerere iyo madaxweynihii dalka Zambia Kenneth Kunda waxaana xusid mudnayd in madaxweynayaashaasi kaliya taliye Maxamed Siyaad Barre waxa uu hordhigay dood ahayd in aanu Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal saameyn wax dhaqdhaqaaqa siyaasadeed aanu sameyn haddaba kacaankii lugooye ee Maxamed Siyaad Barre oo ahaa mid aan ummadu mahadin ayaa waxa uu galaaftay xorriyadii iyo dimuqraadiyaddii xilligaasi uu hormoodka ku ahaa alle naxariistii jannaha ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal inkastoo shuruudihii uu keligii taliye Maxamed Siyaad Barre uu hordhigay madaxweynayaashii dalbaday in ra'iisul wasaare Cigaal oo xabsiga ku jiray in la sii daayo fuliyay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ayaa haddana mar labaad xidhay kadib markii uu sanadkii 1976 uu Cigaal u magacaabay safiirka dalka Hindiya ayuu Cigaal shir kaga qayb galay dalka Colombia kadib nin basaas ah oo ka tirsan golihii kacaanka ayaa keligii taliye Maxamed Siyaad Barre u sheegay inuu wali Cigaal diidan yahay xukunka militariga oo dhibaato badan xilligaasi bulshada ku hayay keligii taliye Maxamed Siyaad Barre oo cabsi iyo shaki ka qaba ninkii uu xukunka ka tuuray in ay Muqdisho ugu yeeshay horaantii sanadkii 1977 isla xilligaasi oo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ku sugnaa Muqdisho muddo 2 cisho ayuu haddana xabsiga u taxaabay keligii taliye Maxamed Siyaad Barre haddaba dhibaatooyinkii ka dhashay xabsigii dheeraa ee ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal uu ku jiray iyo cadaadiskii uu keligii taliye Siyaad Barre oo ku hayay siyaasiyiintii waxgaradka iyo shacabkii ka soo jeeday gobolada waqooyi ee hadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaa ka dhashay cabasho badan iyo niyad jab weyn oo ay ka qaadeen midnimadii lagu kungoobay ee uu ku kala midoobeen koonfurta Soomaaliya oo uu Talyaanigu xukumayay waxaana xad lahayd dhibaatadii laga dhaxlay afgambigii 21 Oktoobar sanadkii 1969 ee xukuumadii ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo keligii taliye Maxamed Siyaad Barre oo xukunka kaga qabsaday barnaamijkani ayaa telefishinka Gobonimo TV waxa uu ka sameyn doonaa inqilaabkii lugooyo ee keligii taliye Maxamed Siyaad Barre ku qabsatay xukunka talada dalkii la isku oran jiray Soomaaliya. Khalid Fantastic telefishinka Gobonimo Hargeysa.